kulanka oo xalay ka dhacay hoteelka Horseed ee magaalada Cadaad ee xarunta maamulka Xaman iyo Xeeb isla markaana ay ka soo qayb galeen ururada kala duwan ee bulshada iyo dhammaan hay'adaha maamulka Xaman iyo Xeeb sida guurtida garsoorka baarlamaanka iyo fulinta ayaa waxa looga dooday xiriirka ka dhaxeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Xaman iyo Xeeb dood dheer kadib waxa kulanka ka soo baxay in maamulka Xaman iyo Xeeb uu gebi ahaanba wada shaqaynta u jaro dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana go'aanka ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha guurtida maamulka Xaman iyo Xeeb Cabdiwahaab Sheekh Aadan iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Daahir Shiiqow dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ka tirsanaynaa dhibaato soo jiitantay oo dhowr goor nagu dhacday oo wax qayb naloo diiday haddana nala ka reebay wasiiradii iyo wasiir ku-xigeenadii iyo wasiir dawlihii 55 baa la magacaabay baa waxa aan ku leenahay iyo waxaan ka waxaan ka siina ma jirto waxa la soo saaray baa leeyahay waxa la yiraahdo waxbarasho iyo macallimiin iyo arday dibadda loo diraayo hal qofna waa la kaga diiday annaguna waxaan isku wadnay inaan nahay baalaha dawladda federaalka sidaas daraadeed waxaan ka qaadanaynaa go'aankaas ana ugu hor dhawaaqay dadka oo kamid ah hogaamiyaasha golaha guurtida ama dadweynaha go'aankan qaadanayna waxa weeye inaan wada shaqayn iyo hadaalkood istixgelin iyo isqaabilid midna inaan lahayn dawladda dhexe dadka beenta sheegaya oo arada ka turjumaya inaysan been sheegin Xaman iyo Xeeb mas'uuliyiintu afartii adoogay waa fulinta oo madaxweynuhu u sareeyo baarlamaanka guurtiga garsoorka weeye intaas weeye waxaan intaas soo marin waa waxaan Xaman iyo Xeeb loo aan soo marin dawladdu waana harqatay federaalku dhan walba waa naga harqatay sida ay noo dawladdu ay noo cagta noo saartayna si aan wada shaqay karno ma insha Allah haddaan nahay Xaman iyo Xeeb waa isku filannahay maamul baa noo dhisan amnigiisu waa sugan yahay waana shaqaysan doonaa dawladdu federaalku ma shaqaynana ayada koosgalaysan inaan wada shaqayn sidoo kale munaasabada waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Xaman iyo Xeeb Daahir Xirsi Cabdi waxa kale Xasan Sheekh iyo dawladdiisa Xasan Sheekh markii la doortay wuxuu yiri anigu waxaan ahay madaxweynuhu ku xigay Maxamed Siyaad Barre waa runtii annaga Maxamed Siyaad Barre waa nala ballamay taangi calankii dawladdu ku xiray iyo beeba calankii ku xiray nala dhacay kii ku xirayna waa adigu hadda waxaa noo muuqata beelaha tirsan kuma jirno oo wuxuu moogtahay qofna gacantuu ka dagaalama qofna ururkuu ka dagaalama waxaa noo muuqata arrin ururka dagaala oo afka laga sheegay ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray wasiirka arrimaha bulshada maamulka Xaman iyo Xeeb Cumar Maxamed Diriye Cumar Guureeye waxaana uu sheegay in maamulka Xaman iyo Xeeb uu ka hor jiray dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana uu sidoo kale bulshaweynta Xaman iyo Xeeb ugu baaqay inay aayahooda ka tashadaan dadka reer Xaman iyo Xeeb sidii aradooda ka muuqatay waa in isku tashadaan maanta waxaan la soconaa meeshaan marayno xagga caafimaadka meeshaan ka marayno waa la socotaan waxbarashada waa la socotaan meeshaan marayno ilaahay baan gaarsiiyay waxaan ku gaarnay midnimada iyo isku tashiga dadka reer Xaman iyo Xeeb ee mar hore isku tashadeen dhinaca amniga sidoo kale 500 kiiloomitir ee Xaman iyo Xeeb ka taliso amnigeedu habeen iyo maalin waa sugayn caawa 5 saac ilaa 6 saac habeenimo saacadaan xafladaha samaynayno magaaladana la marayo meeshii loo doono loo safri karo haddaan dhinaca badan ka fiirino waxaan moodaa Quraanka aan Xaman iyo Xeeb inay ka saartay dalka Soomaaliya sababta wax kasta oo xaquuqa oo dadka reer Xaman iyo Xeeb ay ku lahaayeen dawladda dhexe ee Soomaaliya dhinac kasta ay tahay ilaa hadda wax lagu hayaa ma jirto Daahir Faarax Ahmed TV-ga Kalsan Cadaado.